magaalada okay boolis Roka iyo saaxiibkiisa daacadda ah Greg waxay ku daba jiraan tuuga loo yaqaan Betty bisada orange labadooduba waxay ku cararayaan baabuur si dirqi ah ayay uga baxsadeen iftiinka taraafikada oo dhacay xamuul si kadis ah Betty ayaa ka soo baxa godka biyaha isagoo wata baabuurkiisa mastuulaaga markii ay arkaan labadooduba waxay ku eryanayaan magaalada ilaa ay ka gaaraan buundada weyn ee aan dhamaystirnayn matooradiisa jidka bisadu waxay ku guulaysataa inay ka gudubto buundada laakiin boolisku uu labalabooda si kastaba ha ahaatee waa inuu shaqadiisa qabto oo baabuurka xawaaraha siiyo kaas oo ka gudba buundada laakiin ma gaaro dhinaca kale oo bilaaba inuu dhaco nasiib wanaag Greg wuxuu sitaa baalashuut waxayna ku dagaan saqafka dhismo gaariguna wuxuu ku dhigan yahay geeska oo bilaabay inuu dhaco daqiiqadii ugu dambeysay labadooduba waxay ka boodaan gaariga oo wuxuu ku dhacaa gaariga taliyaha booliiska kaas oo hadda yimid Greg iyo Rota waa badbaadeen laakiin Betty wuxuu la yimid qorshe xun oo uu ku doonayo inuu ka takhaluso mar walba dhismaha ay ku dhaceen tuugu wuxuu ku rakibay bam oo kaliya hal daqiiqo ka hor inta uusan qarxin booliisku wuxuu isku dayayaa inuu joojiyo bamka inkastoo taliyuhu uga digayo inaysan jirin cid ku sugan dhismaha oo uu ka baxo kadib isku dayo badan Rota wuxuu jaray xadhiga cagaaran ee bamka laakiin waxay ahayd xadhiga khaldan oo way qarxaysaa iyagoo labadooduba ku dhacay qaraxa ambalaasku wuxuu yimaadaa goobta oo degdeg u qaada labadoodaba isbitaalka laakiin war wanaagsan ma jiro jidka Greg ayaa saameeyay qaraxa sidaas oo kale madaxa Rota midkoodna ma badbaadi doono kalkaalisadu waxay soo jeedisay in madaxa Greg lagu rakibo jidka Rota si loo badbaadiyo noloshooda saacado qaliinka kadib dhakhaatiirtu waxay abuuraan geesi cusub oo magaalada ah dogman sarkaal booliis ah oo ah isku dhaf iyo bini'aadam oo loo abuuray inuu la dagaalamo dembiyada maalmo kadib weriye Sarah Hadof ayaa ku dhawaaqday in tan iyo qaliinka dogman uu noqday booliis caan ah iyadoo la adeegsanayo caqliga Greg iyo xirfadaha dagaalka ee Rock wuxuu noqday qof caan ah wuxuuna qabtay tuugag caawiyay waayeelka wuxuu ciyaaray ciyaaraha basebalka ee samafalka inkasta oo caan yahay lana aqoonsan yahay boolisku weli dareemaya cidlo ka badan hore sababta dhacdadii dogman hadda wuxuu leeyahay oo kaliya miirka Greg wuxuuna waayay saaxiibkiis Roger saaxiibtiis gabadha ah ayaa ka tagtay gurigiisiina waa iib intuu ku sii jeeday saldhiga dogman wuxuu galay xafiiska taliyaha booliiska oo sida ay kasta oo wanaagsan ayuu ku boodaa ninkii oo bilaabay inuu isaga liqayo taliyaha ayaa xanaaqay oo ku amray booliiska inay dhaqso u dhaqaaqaan maadaama uu helay warbixin baxsashada Betty ee xabsiga dogman si degdeg ah ayuu uga jawaabay wicitaanka wuxuuna ka helay dambiilaha bartamaha magaalada isagoo wado gaari u eg facuum booliiska ayaa lagu khasbay inuu cararo laakiin wuxuu dhaqso ugu qabtaa dambiilaha xeebta iyadoo nadiifiyaha facuum uu nuugayo biyaha badda Betty wuxuu baxsadaa bisaduhu necab yihiin badda wuxuu cidiyihiisa ku jeexaa bacda facuumka biyihiina way ku daataan bisada waxay bilaabaysaa inay ku hafato laakiin dogman ayaa badbaadiya oo xeebta geeya isagoo isticmaalaya sabuurad hirarka dhowr daqiiqo kadib booliiska ayaa xabsiga ku celinaya laakiin bisada si dhaqso ah ayay uga baxsataa oo qorshe kale oo shar ah ayay fulisaa markan Betty wuxuu wataa gaari xamuul ah oo lafo tuura laakiin dogman ayaa qoday dalool weyn oo dhulka ah taasoo sababta in gaariga uu ku dhaco oo Betty la qabto inkasta oo dadaal badan sameeyay maalintii xigtay duqa magaalada ayaa saldhiga booliiska u tagay si uu sheego in bisada orange mar kale baxsatay booliiskana ku eedeeyay kadibna waxay ku amartay in dogman laga saaro kiiska taas oo booliiska ka dhigtay kuwa niyad jabsan oo kalinimo dareemaya markii habeenku soo dhaco wuxuu u socdaa gurigiisa cusub oo ah aqal oo ka fog magaalada isagoo ooyaya si murugo leh nolosha uu lumiyey meel fog Betty wuxuu ku noqdaa meeltiisa qarsoon isagoo u baahan inuu hindiso qorshe kasii xeel dheer si uu dogman u jebiyo bisada waxay ogaataa habka keliya ee lagu jebin karo waa samaynta nuqul kale oo isaga ah markaasuu wuxuu xaraash ka soo iibsadaa mashiinka nuqulka maxaa yeelay laba madax ayaa ka roon hal subaxdii dogman weli wuu ka xun yahay in laga saaray kiiska laakiin madaxiisu wuxuu soo jeedinayaa shaqo kale howlgalka booliiska waa inuu qaado Flippy kalluunka jini xun ee lagu baabi'iyey dagaalka xarunta sayniska ee magaalada booliisku uu adeeca oo kalluunka waxaa loo gudbiyaa xarunta oo loo bedelaa cyborg si loo barto wargeysyada ayaa faafiyey tijaabada taasoo gaartay Betty go'aansaday inuu u adeegsado qorshihiisa shar leh saacado kadib dogman ayaa la geeyey xarunta amniga si uu uga ilaaliyo Flippy in la xado isagoo daawanaya kamaradaha markii madaxiisu tilmaamaha ugu dambeeya bixiyo booliiska ayaa mashquula taasoo ogolaanaysa Betty inuu shaybaarka galo oo xado kalluunka markuu arko in Flippy la qabsaday dogman wuxuu kiciyaa alarmiga oo wuxuu eryadaa dambiilaha ilaa uu la kulmo weriye Sarah iyo kaamirolaheeda Roscoe wuxuu weydiistaa inay caawiyaan qabashada bisada oo gantaalkeeda cusub ku duulaysa Roscoe wuxuu siiyo dronikiisa dogmanna wuu la duulaa isagoo eryasho xoogan ka bilaabaya magaalada dhexdeeda booliisku waxay ku mashquulaan bisad kale oo ag maraysa taasoo ugu dambeyntii lagu tuuro xadhkaha korontada oo ku dhaca boor bisada orange waxay awooday inay baxsato oo ku dhuumato meel ammaan ah halkaas oo ay ku rakibto microchip leh barnaamij ka sii xumaanaya hadafkiisu waa inuu tirtiro dadka wanaagsan ee magaalada okay si uu kalluunka u soo nooleeyo Betty waa inuu geeyo warshada soo saarta buufiska nolosha ka hor intuu bixin mashiinka nuqulka ayaa ugu dambeyntii boostada yimid Bettyna si degdeg ah ayuu u howlgeliyey marka habka la dhameeyo dambiiluhu wuxuu furayaa qaybta si uu u arko nuqulkiisa cusub laakiin wuxuu helay bisad yar oo oranji ah oo la yiraahdo Lil Betty nasiib darro bisada oranji ma akhriyin qaybta buugga tilmaamaha ee ka hadlaya sugitaanka hal sideed sano si nuqulkiisu u noqdo mid la mid ah asalka sidoo kale badhanka kansalinta waa la iibiyey keligiis wuxuuna la jiri doonaa bisadiisa cusub ilaa xirmadu timaado bisada ma jecla arrintan gebi ahaanba way diidaa nuqulka bilaabana inay meel walba oydo dhowr daqiiqo kadib Betty wuxuu dejinayaa bisada yar oo go'aansadaa inuu la aado warshada spray of life si kastaba ha ahaatee markay halkaas tagaan Betty wuxuu si lama filaan ah u riixaa badhan roketkuna uu kaca haddii xaaladdu xumaato kalluunka Flippy ayaa lagu tuuraa dhuunta warshada oo halkaas ayuu ku xanibmaa isagoo aan lahayn dulqaad uu ku maareeyo bisada yar
Betty ku ridaa sanduuq bartamaha wadada oo la baxaa roketkiisa. Lil Betty wuu murugoodaa maadaama uu aabihiis ka tegay, wuxuuna la baxaa sanduuqa si uu u seexdo isagoo istaaga wadada dhexdeeda. Markaas Dogman wuxuu raadiyaa Betty adeegsanaya muraayadaha fogaan aragga oo arkaa ku cararaya roketka. Booliisku wuxuu isku dayaa inuu qabto, laakiin wuxuu arkaa bisad yar oo wadada dhexdeeda ah. Gaari degdeg ahna wuu soo dhowaanayaa. Dogman ayaa markiiba ku booday wadada wuxuuna bisada yar badbaadiyey daqiiqadii ugu dambeysay. Labadoodu dhaqso ayay saaxiibo u noqdaan. Booliisku habeenkaas geeyaa gurigiisa. Mar kale goobta xun ku laabashada Betty wuxuu sii wadaa qorshihiisa ilaa uu ka helo buug sawiro ah oo uu isagu sameeyey. Sawiradu waxay tusayaan iyaga oo wada jira, inkastoo bisadu buugga iska tuurto, haddana wuxuu dareemayaa xumaan inuu bisada yar ka tegay. Dhanka kale, marka waagu baryo, Dogman iyo Lil Betty waxay wada cabaan qaxwo, ku tababartaan pianoga oo waxay sameeyaan hawlo kala duwan. Maalmo badan oo kelinimo ah kadib, booliisku ugu dambeyntii saaxiib buu helaa, oo markii uu seexanayo wuxuu helaa sawir ay samaysay bisada yar oo muujinaya iyaga oo wada ciyaaraya. Si ka duwan Betty, Dogman wuu ku faraxsan yahay ficilkaas, wuxuuna sawirka ku dhejiyaa qaboojiyaha. Dhanka xun, wuxuu dhammaystiray hal abuurkiisii ugu dambeeyey, robot casri ah, sideed eber. Butler oo ahayd kaaliyihiisii hore ayaa soo laabatay si ay u dalbato xuquuqdeeda shaqo maadaama bisada ay si aan sabab lahayn shaqada uga cayrisay. Betty wuu diidaa inuu bixiyo waxayna ku cadaadisaa tusida sawirada cusub ee Dogman ee shabakadaha bulshada. Dhinaca Lil Betty xun wuxuu ka xanaaqaa inuu arko nuqulka oo ag taagan cadowgiisa ugu weyn oo wuxuu u diraa sideed eber inuu raadiyo. Dhowr daqiiqo gudahood, robotka ayaa guriga Dogman helaya oo gacantiisa dheer u adeegsada inuu qabto Lil Betty iyadoo askarigu weli hurdo. Iyadoo ogeyn waxa socda, bisad yar ayaa lagu celinayaa meeshii uu ku dhumaalaysanayay waxayna ku faraxsan tahay inay aabaheed aragto. Bisada ayaa xanaaqda dabeecadda aan waxba galabsan ee bisada yar waxayna u sheegtaa in adduunku uusan ahayn sida uu malaynayo. Si uu taas u muujiyo, bisada ayaa uga waranta waayihiisii hore sida aabihiis uga tegay markuu yaraa. Markuu maqlo, Lil Betty wuxuu isku dayaa inuu raaxaysiiyo isagoo leh inuu heli doono aabihiis maqan maadaama uu durba ka shalayay ficilkiisa. Wuxuu codsadaa inuu aabihiis la seexdo, laakiin bisada ayaa diida. Ugu dambeyntiina bisada yar ayaa sariirta la seexata. Habeenkii wuu dhaafaa, bisada yarayna way soo toostaa, diyaar inay aabihiis ka dhigo qof wanaagsan. Markaas ayuu sideed eberhad robotka howlgeliya oo u dira inuu raadiyo awowgiis si uu uga raali geliyo wixii uu Betty u sameeyey. Goob fog, Dogman baa soo kacay markuu ogaaday bisada yar maqan tahay. Askarigu habeenkii oo dhan buu raadiyaa. Maalintii ayaa baryaysa, Dogman oo aan garanayn meel kale oo uu ka raadiyo ayaa Sarah Roscoe ka codsada inay ka caawiso helidda bisada. Saddexdooda waxay magaalada ka raadiyaan bisada yar, balse ma helaan. Sarah waxay go'aansataa si toos ah u baahiso dadweynaha ka codsanaysa inay caawiyaan helitaanka. Betty wuxuu daawanayaa telefishinka oo ma qorshaynayo inuu nuqulkiisa soo celiyo ilaa uu maqlo albaabka oo la garaacayo. Dhinaca kale ee albaabka, sideed eberhad ayaa la soo muuqda aabihiis bisad duq ah oo xanaaqsan oo aanan waxba iska bedelin. Betty wuu xanaaqaa markuu arko bisada yar oo aabihiis keentay, bisadii isaga diiday yaraantiisii. Lil Betty wuxuu yiraahdaa inuu si fiican u fahmo dareenkeeda. Sidoo kale wuxuu cafiyaa aabihiis oo diiday, wuxuuna ku dhiirigelinayaa inuu awowgiisna cafiyo. Bisada yar waxay isku daydaa inay xaliso arrintan qoyska, laakiin dhibaato weyn ayaa ku soo fool leh Oki. Warshada Spray of Life ayaa la kulantay cilad foornada taasoo keentay in mid ka mid ah dhuumaha uu xanibo. Injineer ka mid ah ayaa hubiyo cilada wuxuuna soo saaraa kalluunka iborka taasoo foornada dib ugu soo celisa shaqadii caadiga ahayd. Si kastaba ha ahaatee, ninku wuxuu bilaabaa inuu la ciyaaro kalluunka wuxuuna si shil ah ugu tuuraa tuubo taasoo keenta dalool ku buufiya warshada oo dhan. Flippy ayaa dib u soo noolaada isagoo hadda ay maamusho barnaamij xun oo jibka ah. Laakiin isaga mooyee warshada oo dhan ayaa ku soo noolaata buufinta. Dhismaha weyn wuxuu isu beddelaa colosus leh gacmo iyo lugo oo raadinaya burburin. Flippy wuxuu yeeraa colosuska inuu raaco amaradiisa kadibna wuxuu u dhaqaaqaa wadooyinka si uu u burburiyo dadka wanaagsan ee magaalada. Inta lagu jiro, Betty wuxuu dhisayaa hub kale, taangiga qaabka doofaarka. Markuu arko abuurka, aabihiis ayaa ku jeesjeesa isagoo leh bisada waa inay raadsato shaqo dhab ah. Lil Betty ayaa difaacaya isagoo leh wuxuu jecel yahay aabihiis sidii uu yahay. Wax taas ka dhigaysa Betty inuu ka fikiro ficiladiisa iyo sida uu la dhaqmay bisad. Si kastaba ha ahaatee, bisada waxay sii wadaa qorshaheeda xun oo u dhaqaaqdaa bartamaha magaalada si ay ula dagaalanto cadowgeeda weyn. Ugu dambeyntii wuxuu mar kale la kulmaa Dogman oo raadinayay Betty, laakiin wuxuu joojiyaa raadinta si uu mar kale u qabto dambiilaha. Bisada markaas waxay weerar ku qaadaa oo ridaa gantaal qaab doofaar ah. Nasiib wanaag, Sarah waxay riixdaa Dogman oo si ciriiri ah. Bisada waxay wadaysaa inay toogato bartilmaameedkeeda iyadoo xirfadeeda badbaadinaysa. Dogman wuxuu leexiyaa rasaasta, wuxuu gaaraa taangiga halka Betty uu qariyo kiciyo shidaalka jedka ee gaadhiga. Wuxuu ku cararaa buundada aan dhammaystirnayn, laakiin taangiga markan wuxuu ku dhacaa dukaanka farmaajada ee dumay. Bisada waxay isku daydaa inay baxsato, laakiin Dogman ayaa horay u sugaya taangiga dibadiisa wuxuuna ku qabtaa markiiba. Lil Betty wuxuu arkaa dhammaan dagaalka telefishinka wuxuuna u tagaa goobta. Halkaas ayuu ka helaa aabihiis oo booliisku xireen. Dogman wuu ku faraxsan yahay inuu arko saaxiibkiis, laakiin wuu la yaaban yahay markuu ogaado inuu yahay wiilka cadowgiisa. Booliisku wuxuu ku jiraa inuu waajibaadkiisa fuliyo ama sii daayo dambiilaha danta eega, laakiin ka hor inta uusan go'aan gaarin, Flippy ayaa soo muuqda isagoo wata colosuskiisa. Markuu arko tan, bisada ayaa ku faraxsan in qorshihiisu shaqeeyey oo hadda ay tahay arrin waqti ka hor inta kalluunka uusan dhammaan dadka wanaagsan ee magaalada. Betty ma filayn Lil Betty inuu noqon doono bartilmaameedka ugu weyn ee kalluunka oo lagu qaatay iftiinkiisa jiidashada leh. Markii ugu horreysay, bisadu ma ka fikirto nafteeda oo keliya, waxayna Dogman ka codsataa inuu caawiyo badbaadinta wiilkeeda. Inkasta oo shakisan bisada, booliisku wuu ogolaadaa, waxayna wada shaqeeyaan si ay u badbaadiyaan bisada yar, laakiin weli waa inay helaan hab ay ku jebiyaan colosuska. Hal mar, Dogman wuxuu ku mashquulaa warqad sidayaasha waddada maraya, laakiin waxay dhalisaa fikrad Betty ah badbaadinta eegiisa. Meel dhow, Flippy wuxuu qorshaynayaa inuu Lil Betty u adeegsado dabin si uu dadka wanaagsan ee magaalada u soo jiito oo hal mar wada burburiyo. Hal abuurka cusub ee Betty ayaa hortiisa ka soo muuqda, Postman Mecha 2 eber oo ah robot weyn oo uu xakameeyo Dogman. Kalluunka ma baqo oo wuxuu soo kaxeeyaa colosuskiisa si uu u weeraro, dagaal weyn ayaa bilaabmaya.
inkasta oo warshada xoog badan tahay dogman wuxuu adeegsadaa kung fu si uu uga fogaado dharbaaxada oo uu weerar celiyo kadib wuxuu howlgeliyaa qoryaha ku rida xabad cadowgiisa dhismaha wuxuu ka soo kabanayaa weerarka wuxuu garaacaa meta mailman oo ku dulbooda dogman ku celceliya weerar wareeg ah oo ku tuura meel fog isagoo ka tegaya cadowgiisa oo yaaban ugu dambayntii robotka weyn wuxuu qabsadaa dhismaha oo leh weerar sublix ah oo loo isticmaalo feerka wuxuu qabsadaa cadowgiisa oo wuxuu la dhacaa dhabarka dagaalku wuu dhammaaday kalluunka wuxuu isku dayaa inuu baxsado oo wata beti adeegsanayna feer karate meta burburiya iftiinka jiidaha oo xoreeya eeyga betina amraa inuu ku laabto meeshii uu ku dhuumanayay xaaladdu waxay u muuqataa inay xallisan tahay laakiin markay jebiyeen colosus biyaha nolosha ayaa daadanaya dhismayaal cusubna way kacayaan iyagoo doonaya inay magaalada burburiyaan xitaa xaalad adag bostman meka labo eber wuxuu ku boodaa dhismayaasha oo isticmaalaya laad wareeg sida straight victor ayuu mid u burburiyey kadib robotka weyn wuxuu isku diyaariyaa wareegga labaad laakiin isticmaalay tamar badan dharbaaxada qaybihiisana bilaabaan inay dhacaan oo ay ku jiraan gacanta iyo surwaalka si uu u caawiyo lilbeti wuxuu ku noqdaa goobtiisa qarsoon wuxuuna weydiistaa caawimaad sideed eberhad kaasoo gelinaya qalabkiisa oo u dhaqaaqaya goobta dagaalka degdeg bay u baahan yihiin bostman meka labo eber tamartiisa waa dhammaatay mana jiro cid kale oo la dagaalami karta dhismayaasha xanaaqsan sara roscoe iyo taliyaha booliiska waxay degdegaan inay caawiyaan beti iyo dogman laakiin waxay ku xayirmaan gudaha robotka nasiib wanaag kooxda waxay ka baxsadaan hawamareenka meta letter cariir dibadda waxay la kulmaan dhismayaal cadhaysan oo doonaya inay ku burburiyaan markaas lilbeti ayaa soo muuqda si uu u badbaadiyo maalinta isagoo la socda sideed eberhad isagoo isu beddelaya robot cad adeegsiga mashiinadooda waxay u dhaqaaqaan dhismayaasha oo ku garaacaan si xoog leh taasi darteed dhismayaashu waxay ku burburaan dhulka dagaalkiina wuu dhammaadaa inkastoo guushan robot cad wuxuu lumiyey xakamaynta saamaynta awgeed wuxuuna ku dhacaa dhulka dogman iyo saaxiibadiis way u cararaan inay caawiyaan laakiin flibi weli nool yahay oo bilaabaa inuu isticmaalo iftiinka jiidista si uu baabuurtooda u tuuro markuu arko in flibi uusan ka harayn beti wuxuu yidhaahdaa dhammaantood inay cararaan wuxuuna galaa qalabka sideed eberhad si kalluunka uu qabto halkii uu ka qabsan lahaa ilmaha flibi wuxuu isticmaalaa iftiinka jiidista inuu qaato robot cad wuxuuna go'aansadaa inuu ku tuuro fulkaanka magaalada dogman iyo lilbeti waxay u dhaqaaqaan taangiga doofaarka si ay u joojiyaan ninka xun lilbeti wuxuu weydiiyaa sababta flibi uu u doonayo inuu burburiyo magaalada oo baabi'iyo dadka wanaagsan wuxuu isku dayaa inuu keeno sharaxaad kale laakiin ugu dambayntii wuxuu qirtaa inuu xanaaqsan yahay adduunka sababtoo ah mar walba waxaa diiday kalluunka kale bisad yar ayaa u sheegtay inuu saaxiib u baahan yahay waxayna siisay buug sawir ah oo ay la sameeyeen dogman buugga waxaa ku jira sawirro bisada iyo kalluunka oo faraxsan taasoo flibi si qoto dheer u taabanaysa wuxuu ilmaynayaa isagoo ka shalaynaya falalkiisii xumaa taasoo keenta in awoodihiisii sharka ay baaba'aan natiijada iftiinka jiidaha wuu burburaa isagoo sii daaya robot cad oo ku dhacaya dabka foolkaana dogman ma ogola inuu dhaco wuxuuna adeegsadaa qoryaha taangiga ku tuuraa kubaddiisii hore ee teniska dhinaca beti tuuristaa saxda ah bisada iyo sideed eber sideed drobot waxaa laga soo saaraa dabka waxayna si nabad ah ugu dhacaan dhulka kooxdu waxay isugu yimaadaan farxad gaar ahaan beti oo ilmihiisa yar ku habsaday daqiiqada kadib taliyaha ayaa ka soo baxa gaariga sarah isagoo samaynaya acrobatis gaariga ayuu ka boodayaa isagoo ku dhawaaqaya in flibi la qabtay si uu sarah u soo jiito wuxuu dirayaa dogman si uu u qabto beti laakiin duqa magaalada ayaa soo baxa oo cafiya bisada geesnimada muujisay dhammaan waxay ku casuumaan inuu noqdo muwaadin eti ah laakiin beti ma rabo inuu noqdo qof wanaagsan wuxuu doonayaa inuu isaga iyo lilbeti ku noolaadaan nabad kadib wuxuu wacaa bisadiisa yar oo raacda aabaheed laakiin waa murugo inay macsalaamayso dogman habeenkii beti iyo lilbeti waxay ku noqdaan meeshii ay ku dhumaalaysanayeen keliya si ay u helaan meel madhan maadaama aabaha bisada uu wax walba xaday oo u cararay magaalo kale waxa keliya ee uusan rabin inuu qaato waxay ahaayeen buugaagta sawirada ee bisada yar u samaysay hadiyad ahaan dadka waxay u baahan yihiin inay helaan meel cusub oo ay ku noolaadaan ka hor intaysan bixin warqad sidayaashu way yimaadaan oo qabtaan badhanka baabiinta ee mashiinka si kastaba ha ahaatee beti ma aha bisadii is-hoosaysiinta ahayd ee uu ahaan jiray wuxuuna tuuraa badhanka isagoo doorbidaya bisadiisa wax yar kadib booliiska ayaa ku soo noqda gurigiisa isagoo hubinaya in hawshiisa la qabtay laakiin sidoo kale murugo inuu macsalaameeyey saaxiibkiis si kastaba ha ahaatee qof ayaa garaaca albaabka oo markuu furo dogman wuxuu helaa beti oo ogolaada in lilbeti uu soo booqdo mar kasta oo uu doono sidoo kale waxay siiyaan kubad tennis cusub oo ay ku qoran tahay magaca dogman booliisku waa faraxsan yihiin waxayna go'aansadaan inay ku raaxaystaan ilaa taliyaha booliiska iyo sarah ay yimaadaan iyagoo leh weli waxaa magaalada dhex wareegaya dhismo si kastaba markuu soo muuqdo dhismaha waa naadi habeen kaas oo shida nalalka oo muusig u ciyaaro qof walba si ay habeenkii oo dhan ugu raaxaystaan waan idin arki doonaa mar kale